بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا محمد maanta waa bishii koobaad sanadka 2026 13 bishii January halkan aynu joognaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ilaahay baa mahad leh wajalla halkan suukan keenay maanta waxaanu doonaynaa maanta inaan wax yar ka nidhaahno waxyaabahan ka socda geeska iyo agagaaradeena qaylada iyo sawaxanka iyo muusanowga ka soo yeeraya dowladda xamar oo bariyahan dambe caadaysatay gardarrada maagitaanka aflagaadada iyo canjarafaynta Somaliland ay ku hayso Somaliland waa dal jiray muddo aad iyo aad u fog ka da'weyn dowladda xamar joogta xamar oo aan gumaysi haysto iyadoo xornimada qaadatay 26 Juun 1960 xilligaas oo ay dowladda muqdisho ay ahayd gacanta uu ku hayay gumaysigii talyaanigu midowgii aynu midownina ahaa mid aan sifo sharciya ku iman ee had iyo jeer caalamka u sheegto inaynu ka mid ahayn taasoo ahayd inayna marna ku qancin waad ogeydeen 61 muxuu ahayto inqilaabkii xasan kayd hogaaminayay ee fashilmay Somaliland waxay madax bannaanideeda dib la soo noqotay 18 May 1991 waxaad moodaa madaxda xamar joogtaa inaanay xilligaa dhalanin oo aanay jirin oo aanay war u haynin Somaliland intii ay goonistaaggeeda iyo madax bannaanideedu ay ku shaqaynaysay caalamkana la macaamilaysay guulaha iyo horumarka ay Somaliland gaadhay 34 sano aanay war ka haynin aqoonsiga Somaliland ay heshay waxaan uga mahad celinaynaa ilaahay baan uga mahad celinaynaa oo waxaynu 34 sano raadinaynay waxaan uga mahad celinaynaa mahad ilaahay ka sokow dowladda Israa'iil iyo shacabkeeda oo inoo muujiyay deganugeyl iyo bisayl iyagoo ahaa kuwii maalintii 1960gii in aqoonsaday ugu horeeyay mar labaadna albaabka mar labaad inoo furay si aynu caalamka uga mid noqono dowladaha cambaaranaya Somaliland waxay ku salaysan yihiin dana shakhsiyaad iyo dana dowladeed oo ay leeyihiin marna kama talinayaan taaynu inagu leenahay iyo danaheenna dal kasta oo madax bannaan oo adduunyada korkeeda ku uumani wuxuu raadiyaa danihiisa iyo maslaxadiisa uu ku horumarinayo dalkiisa shacabkiisa iyo qarankiisa inaguna kuwaasaynu ka mid nahay waxaynu raadinaynaa cid kasta saaxiibo kasta oo adduunyada ku dul nool midabkay lahaadaan ha lahaadaan diintay haystaan ha haystaan kumaynaa midoobin diin waxaa inaga dhexayn doona masaalix ay adduunyadu wada ilaashato taasuu baynu inaguna qayb ka nahay baryahan dambe waxaa muuqatay cadaawad ka dhalatay aqoonsiga ay Somaliland heshay oo bilaabmay jiri doona socon doona caalamkana ay kaga mid noqon doonto kuwa ku andacoonaya inaynu ka mid nahayna waxaad moodaa inay hadda dhasheen oo aanay war u haynin taariikhdii ay Somaliland soo martay iyo muddadii ay soo jirtay caalamka la macaamilaysay iyo guulihii caalamku xaqiijiyay hadday ahaayeen nabadgelyo xasilooni doorashooyin dimuqraadiyad iyo inagoo ka shaqayna amniga geeska qayb weyna ka ah adduunyaduna inagu majeeratay ilaalina xuduudaha aynu leenahay dalalka jaarka mar kastana ku ilaalina dowlad wanaag heshiis nabadgelyo iyo iskaashi caalamiya jamhuuriyadda Somaliland waa dal jira leh taariikh sharci iyo xuquuq buuxa kuwa caalamiya Somaliland waxay xorowday 26 Juun 1960gii ilaa iyo muddadaasna waxay ahayd waxaynu heshiis aan jiritaan aan xaqiiqo ahayn oo ay ku andacoodaan qolooyinka xamar jooga aynu la galnay kaasoo ahaa mid aanay marna dadka reer Somaliland ku qancin kuna qanacsanayn laakiin ay la joogeen jajuub iyo dulmi iyo xasuuq kaasi wuxuu dhalay xasuuqii Somaliland ee caalamku wada qiray og yahay ee Somaliland kaga go'day Soomaaliya 1991 May 1991 tan dal jira oo xasiloon oo ay ka hana qaaday dhismo
dimuqraadiyadeed nabadgelyo iyo doorashooyin xor iyo xalaala oo ay adduunyadu qirtay inagoo ka qayb qaadanay amniga geeska Afrika oo ay ummaduhu jaarka ah inagu ammaaneen mudanayaal iyo marwooyin Somaliland waxay cid walba ugu baaqaysaa nabadgelyo heshiis wada hadal waarta ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliya ku hadasha ee kala dalalka ay kala xuduudaha nacayb uma hayno colaad uma hayno cunfi uma hayno cid kasta oo walaalnimo jecel walaalnimo nu hayna cid kasta oo cadaawad muujisana waxaanu leenahay cudud iyo awood aanu kaga jawaabno oo aan baryahayn qaranka Somaliland wuxuu leeyahay xuduudo cayiman oo caalamku yaqaano oo Afrika ay ku dhaqan tahay adduunyaduna ka marakacayso wuxuu leeyahay hanaan dawladnimo oo la dhisay muddo dheer oo shaqaynaya oo caalamka la macaamila oo adduunyada qirayso waxa uu leeyahay cudud ciidan oo aan marna bixinin jaanisyo cadow ka faa'iideysto cid kasta oo ku soo xadgudubta qaranka Somaliland waxay heli doonaan jawaabo mudan gardarrada iyo xadgudubka ay u geystaan waxaanu caalamka u sheegaynaa dawladda xamar oo aad ogeydeen xasuuqii ay ka geystay geyigan Somaliland iyo burburkii iyo dhibaatooyinkii iyo kontonkii kun ee ku naf waayay iyo qaxii iyo burburkii ay geysatay oo ay iyaga laftooda kuwa maanta xilka haya ay ka marakacayaan inay mar labaad u abaabulayso inay dawlado shisheeye u soo kaxaysato si ay mar labaad u dhibaateeyaan qaranka Somaliland balse taasi ay tahay hungowi iyo hog la'aan waxaad moodaa runtii inay nimanka xamar ka taliya inay runtii aad moodo niman cadaawad gaamurtay u haya Somaliland balse Soomaalidu waxay tiraahdaa nabar adagtay kuma gagabiyo waxay yihiinba waan ognahay kuwa xulufada la noqonaya ee doonaya inay Somaliland u soo xulfaystaan kuwaasina waxay ku socdaan god madow oo runtii aanay mahadin doonin waxa jira kuwa aan maalin noolaan karin marka la eego nolosha geeska Afrika hadday dagaal galaan oo haddana maanta kamida cadow ku soo biray cadowga Somaliland kuwa iyo Somaliland si dhaqsaab isu baran doonaan jawaabo ku midanna way heli doonaan haddii alla ka dhigo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh